kulanti wanaagsan dhageystayaal oo mar kale iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka wararkii diblomaasiyadeed iyo wararkii markaas ku saabsan qaada dhigista faallooyinka iyo aynu mar walba ku fiirinay bal waxa u dambeeya caalamka ka cusboonaaday dalalka markaasi kolba marka ka sii dambeysay iskhilaafaya xaaladda amniga ee caalamka iyo wararka diblomaasiyadeed kuwa sirdoonka iyo kuwa kale ee markaasi caalamiga oo dhammaan aynu ku qaada dhigno isla markaana aad kala socotaan barteenan ama shabakada Horufadhi media aad kala socotaan anagoo dabcan kol kastaba idinkeena wararkii ugu dambeeyay iyo kuwa xaqaa'iqa oo dabcan aan idinka soo warno dhammaan warbaahinta caalamka diblomaasiyiinta iyo baraha bulshada ay ku leeyihiin madaxda kala duwan ee dunidan haatan ka turtulayaasha inagoo mar walba diiradda ku saarna wararkeena inaynu shacabka Soomaaliyeed siino warar hufan oo ku saabsan xaaladda iyo qaabka dunida haatan u jahaysanayso iyadoo marka ka sii dambaysa cabsi xooggan oo dhinaca amniga caalamka ay jirayso maanta ama ay jirto maanta waa maalinimo Arbaca dabcan bishana waa 23 waana 2017 madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ninka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in uu Maraykanku isku diyaarinayo inuu qaado dagaalo waaweyn oo dalkiisa ku difaacanayo kuwaas oo uusan carababin wuxuu sheegay in amniga dalkan Maraykanka runtii ay tahay wuri in la adkeeyo isagoo sheegay in Maraykanku uu dadaal ugu jiro waxa uu yeeray adkeynta ammaankiisa iyo danihiisa caalamka ee arrimaha dibadda madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona oo kula hadlayay boqolaal dad oo isugu soo baxay halkaasi ayaa wuxuu sheegay in uu doonayo inuu sida ugu dhaqsaha badan uu xaaladda amni ee caalamka gaar ahaan tan dunida kaga xidhan buuri Maraykanka uu sugo madaxweyne Donald Trump oo banaanka meesha uu khudbada ka jeedinayay ay ka soconayeen kumanaan qof oo ku mudaharaadaya ay banaankiisa ay ruuxayeen calaamado ka dhanaa madaxweyne Trump oo ay kamid tahay in la jeclaado Donald Trump waa nacayb iyo halkudhigyo kale ayaa wuxuu u sheegay dadkii Maraykanka halkaas ugu yimid inuu difaacayo hadal hore oo ka sheegay dhacdadii ka dhacday gobolka Virginia ee ku dhimatay gabadh dhalinyaro ahayd oo ahayd dadka iyagu ka soo horjeeda dadka xaq jirka ee Maraykanka ama kuwa cusuriyiinta kuwaas oo mudaharaad nabadgelyo ka dhigaysay halkaas uu gaar jirsiiyay nin cadaan ah oo kamid ah dadka markaasi cusuriyiintu ay madax martay sidoo kale dawladda Maraykanka ayaa waxay ku dhawaaqday inay saartay cunaqabateeno cusub shirkado iyo hay'ado waaweyn oo dalkaasi dalalka laga kala leeyahay China iyo dalkaasi Ruushka arrintan ayaa waxa ku jira shakhsiyaad dhinaca markaasi dhinaca hubka iyo waliba warshado waaweyn leh oo ku dhow baa leeyahay dawladaha labadaasi dal waa Beijing iyo Moscow madaxa ama xogayaha dhaqaalaha ee dalkaasi Maraykanka ayaa wuxuu sheegay in 6 kamid ah shirkadaha waaweyn ee dalkaasi China iyo mid kamid ah dalkaasi Ruushka oo laga leeyahay dalkaasi Ruushka oo laba kamid ah kuwa China ay ku dhaqan yihiin ama ay ka shaqeeyaan baa leeyahay xarumo ku leeyihiin dalka Singapore si rasmi ah loo saaray cunaqabateen waxayna sheegeen in dawladda dalkaasi China 6 shirkadood waaweyn ee cunaqabateenta laga saaray ay jawaab celin u tahay kadib markii sirdoonka Maraykanka ay ogaadeen in dawladda dalkaasi China ay si xooggan oo la shaqeynayso xukuumadda Pyongyang ee dalkaasi waqooyiga Kuuriya oo ay Maraykanka xaaladoodu meel adag marayso dhageystayaal wali waxaynu bartan kaga jirnaa warar ku saabsan dhacdooyinka caalamka waxaan idin haynaa warar kale oo la leeyahay gaar ahaan markabkii ku dhacay baddaasi Pacifiga ee dalka Maraykanka laga lahaa oo la sheegayo haatan in la riday oo laga yaabo inay waqooyi Kuuriya ku lahayd ayaan arkaa war hadda degdeg oo soo dhacay kaana waa idinku dari doonaa haddii alla idmo hase yeeshee arrintan qadiyadan cusub ee dawladda dalkaasi Maraykanku ay ku saartay cunaqabateynta 6 shirkadood ee waaweyn oo China laga leeyahay ayaa waxay inkastoo Ruushka ay mar walba cunaqabateynta iska saarayeen ayaa waxay muujinaysaa macnaha ama fasiraad ka bixinaysa sida Maraykanku ugu fahansan yahay doorka dalkaasi China ee waqooyiga Kuuriya oo la aaminsan yahay in China aysan raalli ka ahayn talaabooyinka Maraykanku gobolka wado horey ayaa China waxay u sheegtay in aysan raalli ka ahayn joogitaanka ciidamada Maraykanka ee xoojinaya xarumaha ay ku leeyihiin baa la yiri dalalka Japan iyo Koonfurta Kuuriya waxayna ka digtay horey in joogitaan kasta iyo xoojin kasta oo dowladtuska labada maalmood haatan soconaya uu kamid yahay ama maalintii saddexaad haatan galay ciidamada Maraykanka iyo kuwa South Korea ay bandhiga military ku sameeyaan ay horinayso colaadda isla markaana ay ballaarinayso in dawladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya ay xoojiso murqeeda dhinaca hubka nuclear-ka madaxa dhaqaalaha ee dalka Maraykanka Stephen Mnuchin ayaa wuxuu sheegay in uu sida ugu dhaqsaha badan uu u soo saarayo wuxuu ugu yeeray liisas dad kale oo sheegay inay xiriir leeyihiin buuri dhaqaale xooggan ka helaan ayuu dalkaasi
waqooyiga Kuuriya. Mr. Munich ayaa wuxuu sheegay inaan la aqbali karin shakhsiyaadka iyo wuxuu shirkadaha China iyo Ruushka iyo kuwa kale adduunkaba ah ee aqbali diiday buu ama qaada diiday go'aamada qaramada midoobay iyo kuwa Maraykanka ee caqabataynta ka dhanka ah ayuu yiri waqooyiga Kuuriya wuxuuna secretary-gu sheegay Nicholas Stephen Munich oo ah xogayaha dhaqaalaha ee dalkaasi Maraykanku inay hayaan buu calaamado muujinaya in shirkadahan oo qaarkood yihiin kuwa hubka soo saara ay hubka iibiyaan dalkaasi waqooyiga Kuuriya taasuna ay tahay khatarta ku haysan Maraykanka. xogayaha difaaca dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa wuxuu soo gaaray magaalada Istanbul iyo waliba asagoo sidoo kale tagi doona magaalada Ankara. Xogayaha ka digay markii uu horeysay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa waxaa la sheegay in uu halka u tagay qaboojinta xiisadda diblomaasiyadeed iyo tan military ee u dhaxaysa kadib markii ciidamada militariga ee dalkaasi Turkiga iyo kuwa Maraykanka ee ka dagaalamaya dalka Syria ee baacsanaya kooxda ISIS ay khilaaf weyn soo kala dhaxgalay. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Maraykanku uu si cad u taageeray urur Kurdiyiintu leeyihiin oo dalkaasi Syria ka dagaalama oo xiriir la leh ururka kale PKK ee la dagaalama dowladda dalkaasi Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga ayaa la sheegay inuusan la kulmi doonin Jim Mattis wuxuuna asagu u baxay magaalada Ciraaq xarunta u hay Baghdad waniga Mafled Kafs Ogle waxaana la rajeynayaa in wasiirka difaaca ee dalkaasi Nurettin Sakbi uu la kulmi doono Jim Mattis. sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku maqan dalka dibadiisa asagoo maanta khudbad u jeedinayay baarlamaanka iyo odayaasha golaha shawrada ee dalkaasi Jordan ayuu wuxuu sheegay inuusan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uusan Turkiga aqbali doonin dowlad lagaga dhawaaqo madax banaani sheegata waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Wuxuu sheegay in arrintaas ay u arkaan faragelin iyo inay khatar ku noqon doonto amnigooda arrimaha gudaha. wuxuuna sheegay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi aan yiraahdo arrimaha wasaaradda difaaca ee dalkaasi Turkey in laga wada hadli doono Jim Mattis iyo Nurettin ay ku wada hadli doonaan dhacdooyinka Maraykanka iyo Turkiga u dhaxeeya ka taagan qadiyada gaar ahaan ururka leeyahay YPG oo ah urur ay leeyihiin Kurdiyiinta kuwaas oo hub xoogan Maraykanku siiyay oo ku jiraan qoryaha baabuurta la saaray la yiraahdo anti-aircraft ama kuwa lidka diyaaradaha. waxaana la sheegay in dhammaan kuwaas ay walaac ku abuureen baa lidhi dowladda dalkaasi Turkiga oo doonaysa in hubka la soo celiyo isla markaana waxaa la yiri la soo gudbiyo la yiri dhammaan xogta hubkaas ku saabsan iyo lambaradooda si ay Maraykanka Turkiga oo la socdaan hadhowtana Maraykanka uga xisaabtamaan. dhageystayaal ana u jeesana bal xaggaas iyo waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka iyo waliba markabkii ku dhacay xeebta dalkaasi Singapore. militariga dalkaasi Malaysia oo ka qayb qaatay badbaadinta markabka la yiraahdo US McCain oo ahaa markab gujis ah oo saara hubka culculus iyo gantaalada wax burburiya ayaa waxay markii ugu horeysay soo saareen sawirro muujinaya burburka gaaray ama sida dhaawac uu soo gaaray markabka la yiraahdo USS John S. McCain. waxayna sheegeen in markabkan oo ku dhacay mid kale oo isla Maraykanka ku leeyahay oo ah mid asagu dhinaca logisticada ama dhinaca farsamada ah oo markaasi xambaarsanaa asagoo qalabka militariga ay markaasi ay ahayd bal leeyahay cilad ka soo wajahday ayay sheegeen militariga dalkaasi Malaysia ka soo wajahday ayaa la yiri dhinaca bidix ee dame ee markabka oo ka soo gaaray dhaawac lixaad leh kaasoo muujinaya dalool hoga oo kadibna ay biyo xoogan ay soo galeen markabka taasuna ay keentay in markabka waxyeello gaadho 10 kamid ah ciidamada Maraykanka ilaa haatan la geeri iyo nolol walow qaar kamid ah la badbaadiyay. waxaana la sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay taliyaha ciidanka badda ee dalkaasi Maraykanka in la eriyay baa la yiri isla markaana shaqadii laga ceyriyay ku-xigeenka taliyaha ciidanka badda ahaana ninkii u qaabilsanaa markabkaasi oo la yiraahdo Admiral Joseph Aukin. waxaana la sheegay in taliyahaas oo ahaa taliyaha qaybta sidoo kale ciidanka toddobaad ee badda ee sadhigooda ahaa baa la yiri deegaanka Yosuka ee dalkaasi Japan si rasmi ah looga ceriyay shaqada kadib markii la ogaaday baa la yiri in markabka cilada uu dhacay aysan ahayn cilad caadi ah ay tahay markabka oo la sheegayo in runtii la leeyahay la hagareeyay ama la jabsaday qaabka ama habka computerized-ka ee markabkaasi uu ku shaqeynayay sidoo kale laga lumiyay jihayihii ayadoo markabka iyo kabtanadaba laga waalay systemkii ama qorshihii dhinaca GPS waxa loo yaqaano ee markaasi ay ku hagmayeen kadibna ay ku dhaceen markabkaas kale. waxaa la sheegayaa in hacking lagu sameeyay ama jabsiga loo geystay computerka markabka laga yaabo inay la kuleeyihiin waxa loogu yeeray dalalka
cadowga ku ah Maraykanka oo loo maleynayo in uu mid ahaan la tuhunsan yahay dalka Ruushka iyo dalkaasi waqooyiga Korea. Arrintan ayaa waxay tahay dhacdo yaab leh oo runtii la sheegayo iyadoo mid ka mid ah madaxda dalkaasi Maraykanka gaar ahaan taliyaha ciidanka guud ee Maraykanka ee badda ninka la yiraahdo Scott Swift oo gaar ahaan aan iraahdo ciidanka guud ee Pacific-ga ee Maraykanka uu sheegay in ay runtii baarayaan arrintaas. Wuxuuna sheegay in ay runtii la yaaban yihiin markabkan oo ahaa mid casri ah oo marayay baa la yidhi marinka la yidhaahdo Malacca in ay ka dhigaysa buuri markabkii afraad ee sanadkan gudihiisa runtii bay yiraahdeen ay ku dhaca ama dhibaato ka soo gaadho biyaha dalka qaaradda Asia. Waxaana la sheegay in darbaa baaritaan xoogan ay wadaan ciidamada Maraykanka oo ay ku ogaanayaan sababta markabka uu isticmaali waayay baa la yidhi kaydkiisa dhinaca kale taasoo lagu badbaadi karay ciidanka iyo qalabka markabka saaranba iyo sidoo kale baa la yidhi inuusan markabku dhicin iyadoo markabka qalabkiisa la sheegay in qalabka saaran yihiin kuwa casri ah. Madaxda Maraykanka iyo ciidamada gaar ahaan kuwa ciidamada qalabka sida Maraykanka ayaa ka arrinsanaya baaritaan xoogan in la sameeyo oo lagu ogaanayo in la jabsaday qaabka ama kaydka computerka laga hago markabka taasoo ka jahawareerisay marinkii uu mari lahaa kadibna uu ku dhacay markabkaas kale. Arrintan ayaa hadii rumowdo waxay muujinaysaa dhibaatada ammaanka ee Maraykanka soo food saartay iyadoo ay tahay in Maraykanku arrintan uu si degdeg ah wax uga qabto sida ay qabaan xeelerayaashu iyadoo horeyna loo qabay tuhun ah in doorashadii 2006 ka dhacday dalkan Maraykanka si weyn loo jabsaday loona farageliyay. Waxaana la ogaaday in sidoo kale malaayiin ama kumanaan email oo ay leeyihiin xisbiga dimuqraadiga ahaa ee ka sharaxneed haweeneydii loo jiray Hillary Clinton ee horeyna u ahayd xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ay la sheegay in la jabsaday oo Ruushku ay jabsadeen iyo kooxo kale oo qowleysatay oo dhinaca internetka burcadka ah. Arrimahan oo dhan ayaa waxa la leeyahay Maraykanku inuusan adkaynin ammaankiisa dhinaca waxa loo yaqaano daatada dabcan oo markaasi ay tahay yiraahdeen inay talaabo lixaad ka qaadaan. Haddii arrintan ay cadaatana waxay horseedaysaa la leeyahay in Maraykanku talaabo degdeg ah oo dhinaca militariga ah uu ku jawaabo. Waxaana la sheegay sida uu sheegayo taliyaha ciidanka Pacific-ga ee badda ee Maraykanka inay amreen in si baaxad leh ay xeelerayaasha dhinaca computeriska iyo teknolojiyadu ay u baaraan baa la yidhi dhacdadan sida uu soo xiganayo sarkaalkaas soo xiganayso wakaaladda ama TV-ga ugu weyn Maraykanka la yiraahdo CNN ayaa waxay intaas ku dartay inaysan weli kala cadayn in Maraykanku in dadkii saarnaa ciidamadii Maraykanka ah ee saarnaa markabka ay awoodi waayeen inay controlaan ama xakameeyaan baa la yidhi dhibaatada gaadhay markabka oo markii hore koobnayd. Hase yeeshee waxaa laga yaabay sida kabtanka markabka ama kabtanada markabku ay u arki waayeen baa la yidhi markabka kale ee asaguna markaasi ku dhacay iyadoo gujiskaasi ay dhibaato lixaad leh uu ka dhashay khasaare weyn oo Maraykanka ka soo gaaray. Waxaana gacan weyn siiyay baa la yidhi ciidamada badda ee dalkaasi Malaysia oo runtii markabka soo jiiday isla markaana xeebta u jiiday wixii ka haray iyadoo weli la raadinaya baa la yidhi qaybo kamid ah markabkaasi. Xeelerayaasha oo dhan ayaa cabsi xoogan ka muujinaya awoodda dhinaca computeriska ee cadowga haddii ay arrintaas run noqotana waxay sheegayaan in loo baahan yahay in Maraykanku uusan is dhigan. Dhageystayaal wali halkan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo waliba wararkii diblomaasiyadeed eenu marwalba ku qaada dhigno. Saan hore idin sheegay dhageystayaal waxaan idin ballan qaadnay inaanu dalal kasta oo xiriirkooda madmadow galo ama waxyaalo aanu idila socodsiino. Dowladda dalka Maraykanka ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday in ay dhintay isla markaana hakisay lacag gaadhaysa 290 milyan oo deeqa oo ay siinaysay dalkaasi Masar. Warkan oo ka soo baxay dowladda dalkaasi Maraykanka oo laga soo xigay isla markaana ka soo xignay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo magacooda aan sheegin sabab aan loo ogolaanin inay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in Maraykanku go'aan ku gaaray inuu hakiyo lacag gaadhaysa 290 milyan oo doolarka Maraykanka taasoo ahayd lacagta sanadlaha ahayd ee Maraykanku ay sii jireen Masar. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay baa la yidhi kadib markii dowladda dalkaasi uu hogaamiyo jananka majaxanjacaha ilaahdo Jenaraal Cabdifataax al-Siisi uu gacan bira ku qabtay dadkiisa sidoo kalena uu ka mamnuucay dalkiisa isla markaana shuruuc waaweyn uu ka dejiyay NGO-yo baa la yidhi ama hay'ado dhinaca gargaarka ah oo markaasi deeqi jiray baa la deeqsi jiray dadka xabsiyada ku abaaday iyo kuwa kale la qabqabtay iyo dadka lagu cayreeyay hantidooda in ay la wareegtay dowladdu oo kuwaas oo dhaqaaleey jiray baa dadkaasi. Cabdifataax al-Siisi ayaa ku sheegtay dowladda dalkaasi Maraykanku inuu ku tumanayo xuquuqda aadanaha iyo shuruucda caalamiga ah waxaana Maraykanka oo horey soo dhigay baaqiyo fara badan
oo ahaa kutumashada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Maraykanku dalkaasi Masar ay Maraykanku ku taageerayeen ayaa haatan la sheegay in cadaadis xoogan dowladda Maraykanka ay ku saareen hay'adaha xuquuqda insaanka iyo waliba madax ka tirsan dhinaca xildhibaanada ama aqalada Maraykanka bishii Abriil ee sanadkan markii uu booqday maqalka cad General Abdel Al-Sisi ayaa madaxweynaha Donald Trump halka ku soo dhaweeyay uusan soo hadal qaadin meel ka dhacyada iyo gacanta birta ah ee uu dalkaasi ku maamulo Al-Sisi waxaana taas ka dhashay dhacdooyin cambaareen caalami ah oo hay'adaha dhinaca xuquuqul insaanku ay ku qaadeen dalkaasi waxaa la sheegay in dalkan oo runtii ay sii jireen dhaqaalaha ugu badan ee dibadda gaar ahaan kan militariga ay ka caawiyaan marka laga reebo dalka Israel ay ujeedada ay u siiyaan dhaqaalahana ay tahay dabcan dalkan oo muhiim u ah xiriirka Israel ee madaqada iyadoo uu yahay dalka kaliya xiriirka xoogan la leh dalkaasi Israel ay tahay baa leeydi iyo sidoo kale baa leeydi Maraykan Canal Suez leeyahay ay dalkaasi maamulaan wararku waxay intaas ku darayaan in dowladda dalkaasi Maraykanku ay ka fiirsanayso in sidoo kale lacagta dhinaca militariga ah ay ka goosato 65 milyan sanadkiiba iyadoo dhaqaalaha guud ee dalkaasi ay ka bijirtay Maraykanku in wararku waxay sheegayaan sidoo kale in dowladda dalkaasi Maraykanku ay ka fikirayso baa leeydi inay yareyso baabuurta ay ka bedesho militariga dalkaasi Masar iyo sidoo kale diyaaradaha qalabkooda oo ay siiso lama yaqaano baa leeyay saameynta arrintan ay ku yeelan doonto dalkaasi Masar oo ah dal dhaqaalihiisu burbursan yahay isla markaana ay ka jirto gacan bir ah oo ku maamulo militariga dalkaasi gaar ahaan wiilka dalkaasi haystay General Abdel Al-Sisi oo ka tuuray madaxtinimada madaxweynihii hore Maxamed Mursi loo jiray Ciise Caawad Ayaad kaasoo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si nabadgelyo aan iraahdo dimuqraadiyada loo doorto taariikhda dalkaasi Masar waxaana la sheegay in ninkaasi waatan uu ku jiro xabsi aan lahayn bali dhamaad dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Wararkii Tillerson ayaa wuxuu markii horeysay shaaciyay in Maraykanku uusan ku guuleysan doonin dagaalka uu ku wado dalka Afghanistan isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu waxa kale uu sheegay in Taliban sidoo kale iyaduna dhankeeda aysan ku guuleysan doonin baa leeyay dagaalka ay wado wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in Taliban iyo Maraykanku wada hadlaan xogayaha arrimaha dibadda dalka Maraykanka wuxuu intaas ku daray in Pakistan ay door muhiim ah ka qaadan karto sidii miiska wada hadalka loo keeni lahaa dalka xukuumadda waxa aan iraahdo kooxda Taliban ee dalkaasi Afghanistan wuxuuna Tillerson ku celiyay in hadalkii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in xukuumadda Pakistan ay taageerto ama ay gabaad siiso argagixisada ay tahay mid run ah wuxuuna sheegay in dowladda dalkaasi Pakistan looga baahan yahay doorkeeda galaangal ee ku leedahay Taliban inay qaadato isla markaana miiska keento si loo soo waxay yiraahdeen si loo soo dhaweeyay yiraahdeen wada hadallo dalkaas ka dhaca waxa hadalkan ayaa muujinaya sida Maraykanku uga niyad jabsan yahay dagaalka 16 jirsaday ee ka soconaya dalkaasi Afghanistan kaasoo aan ilaa hadda midho dhal noqon isla markaana meesha aan laga saarin xoogii iyo tabartii kooxda Taliban oo markiis dambaysa sii xoojinaysa dagaalkeeda isniintii ayay ahayd markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay xoojinayaan ciidankooda ay geenayaan dalkaasi Afghanistan isla markaana ay baahinayaan ay badinayaan ciidamadooda ka jooga dalkaasi haatan 8400 ah laguna dari doono ciidamo kale wuxuuna Donald Trump hore u sheegay inuusan weligii ku guuleysan doonin dagaalkaasi Maraykanku ka hor intuusan asagoo madaxweynaha noqon asagoo hore u ballan qaaday in uu arrinta dib uga weecad doono marka uu tago aqalka cad dhanka kale dowladda dalkaasi Qatar ayaa waxay beenisay war been abuur ah oo laga sii daayay TV-ga leeyahay Dubai TV kaasoo la sheegay in ay dalkaasi ka bilowdeen mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo gaar ahaan ay ka dhaceen magaalada xarunta Qaahir ee Doha dalka Qatar ayaa arrintaas wuxuu ku tilmaamay arrin la yaab leh iyadoo TV-ga Dubai TV warka laga sii daayay intaas lagu daray in ciidamada Qatar iyo kuwa Turkiga ay ka qayb qaateen balay joojinta dadkaas iyagoo ku riday balay gaaska dadka ka ilmaysiisa hase yeeshee TV-ga Al Jazeera ayaa wuxuu sawir ka soo qaaday xaaladda magaalada Doha oo dadku ay kala macaashayaan iyadoo aysan jirin haba yaraatee laba qof oo mudaharaad isugu yimid taasoo la sheegay inay tahay been weyn iyadoo dowladda dalkaasi ay ku tilmaantay hadalkaasi war been ah waxaana war qoraal ah oo laga sii daayay TV-ga Al Jazeera lagu sheegay in dowladdu haatan ay la yaaban tahay ficilada warbaahinta dalalkaasi cadawga ah bay yiraahdeen ayadoo horey loogu haystay TV-ga Al Arabiya ayadoo muuqaal uu ka sameeyay iyo sawirro uu ka sameeyay oo malaawaala diyaaradda dalkaasi la yiraahdo Qatar Airways oo ay soo ridayso diyaaradda F-15
ee dalkaasi Sacuudiga dagaalka taasoo dhalisay cambaareen caalami ah iyo in maxkamad la saaro TV-gaas oo la sheegay inay baqdin iyo cabsi argagax ku abuurtay dadka la safra shirkadda Qatar Airways iyadoo shuruucda caalamiga ah ee warbaahinta aan laga ogolayn in la dhoodhoobo muuqaalo noocaas oo kale ah kuwaas oo cabsi geli kara shirkado ganacsi oo shacab dhageystayaal intaan ku soo koobno warkeennii salaamu calaykum iyo kulanti wanaagsan iyo amaana Allah